They are mentioned in the Holy Quran. La ilaha illa ar-Rahman. La ilaha illa ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ومحى الظلم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درسيغا أساقنا ودرسيغي سدحاد سلسلة أحكامتا الأحكام الصيام كا أم أحكام الصوم كا أنك قهد لينو صومكو بشي markay dhalato iyo habeen walba qofka waxa laga rabaa inuu niyeysto habeenkii oo uu ku seexdo niyadii soomka maxaa yeelay qofkii aan niyeysan soomku niyad la'aan ma asaxayo amal walbana waa sidaas nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu qofkan yani ku seexan oo fajarka ka hor aniyeysan habeennimada soon male buu nabiga sallallahu alayhi wasallam sida daraadeed waxa la rabaa in soonka la niyeysto oo niyada la geliyo niyada in lagu dhawaaqo oo nawaytu sawma qadin an adaa'i shahr maxaan kula fardu shahr ramadan in sida loo akhriyo yani waxa weeye sunna ma ah maxay la niyadu maxalkeedu waa qalbiga laakiin dadkan hadda masaajidda loogu xirayo oo maaragta maxaan ku leeyahay runtii xilliga yani dadka caamada ahba iska fara badnaa min wadaadadu waxay islahaayeen dadku yay maaragta maxaan ku leeyahay yaan soonkii seegine ha loo xiro laakiin mar walba waxaa fiican sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam in la waafaqo inay dadku bartaan inay soonka niyeystaan iyagu oo qof walba uu niyadiisa uu geliyo maadaama cibaado fardi walba gaar looga raba ay tahay xadiidka Aisha radiyallahu anha ay warinayso oo marfuuca ah وحورنا من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له يعني قفك أن صون كسيحا وأن سيني يسن انت فجر كصوبح فلا صيام له قفك وحصانة ملو سيدا درادة صومك وحال ربا قفك إنو نيستوها بين ماذا يا علماء قيبا وحيرة هذا سيدا مالكية أو كلاته بشهر رمضان ما لنت أي دالنايسو بهبينك أي دالتو ayuu qofku wuxuu niyeysan karaa 30 maalmoodba inuu soomayo ya 30 maalmoodba inuu saybiyo laakiin waxa weeye sida shaafiiciyada ay qabaan waxa weeye in habeen walba uu niyad u baahan yahay sida wanaagsanna waa sidaas yani xadiidka nabigana saasa ka muuqata walam hanqula man lam yubayyit as-siyama qabla tuluu'i al-fajr fala siyama lah qofki aan soo niyeysan inta fajrka ka horeysa yani waxa qofkaas soon male sida daraadeed waxa weeye qofka waxa laga rabaa in uu ku dadaalo inuu niyad la yimaado oo soonka uu niyeysto niyadana maxalkeedu saan sheegnay waa qalbiga ya inuu ku dhawaaqo oo la qayliyo waxba shardi ma aha mawjid oo marka waxa weeye wuxuu niyeysanayaa qofkii yani waxa weeye cuntadii iyo cabitaankii iyo shahawaadkii inuu ka tagayo lillahi tabaaraka wa ta'ala bu qalbiga gelinaya mawjida يعني وانا وحيابها ay ku kala duwan yihiin soonka sunnada ah iyo soonka faradka soonka sunnada ah isaga barqadi ayaa la iska niyeysan karaa waxa u daliila xadiidka Aisha radiyallahu anha nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri yani hal indakum shay war wax ma haysan la cuno intuu barqadi u yimid faqulna waxaan niri la waxa ma hayno tiri bay Aisha tiri waxa ma haynaa niri faqala wuxuu yiri fa inni idan saa'im marka waa soomana mawjida markaasa maalin kale waxay leedahay Aisha nabiga sallallahu alayhi wasallam waa yimid waxaan ku iri bayt rasuulka ilaahay waxaas baa naloo soo hidiyay oo cunto ah markaas wuxuu yiri itus markaan tusay yani wuxuu yiri falaqad asbahtu saa'iman waxaan waa bariistay anoo sooman yani waa soon sunnah markaas fa akala nabiga cunay sallallahu alayhi wasallam marka
soomka faradka ay kan sunnaha saas kala duwan kan sunnaha yani subax hore waa iska sii niyeysan kartaa hadaad quraac weydid xataa ama adoon quraacanba hadaad soo toosid yani markaas barqadii waa iska niyeysan kartaayo waa soomi kartaa ama soonka faradka waa inaad habeenkii niyad alla seexataa weeye oo laga maarmaan ah saas xataa saxaabadii laga sheegay sida maarata Abu Darda ay sheegtay waxay leedahay Abu Darda wuxuu oran jiray maarata sida Bukhari sheegay yani wax cunto ama haysaan markaasaan waxaan oran jirnay maya markaas wuxuu oran jiray fa inni saa'imun yawmi maanta waa soomanahay sidaas oo kale Abu Talha laga sheegay Abu Hurayra laga sheegay Ibn Abbas Hudayfa soomku niyad ayuu u baahan yahay faradka kan kalena waa u baahan yahay laakiin kan kale barqadii baa la iska niyeysan karaa saan sheegnay marka xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay in habeenkii niyad lala seexdo inay laga maarmaanta waxaana u daliila in niyad loo baahan yahay xadiiska caamka ah inama al-a'maalu bin-niyaat xadiiska Umar yani acmaashu waxay ku guntantaa oo ku asaxdaa niyaadka wa inama likulli imri'in ma nawa qof walbaana wuxuu niyeysto ayuu leeyahay sida daraadeed waxa loo baahan yahay yani in niyadda la geliyo oo qofku uu niyeysto inuu maarata maxaan ku leeyahay uu soomo mawjeeda laakiin hadduu dhaw qofka cuntada aan iska daynaya de kuwa hadda xabsiyada ku jiro dhaa cuntadan ka soonnay iyo qofkii soonka cibaadada asoomanaa ee faradka ah maxay ku kala duwanaanayaan waxa kala soocaya waxa weeye waa niyadda ayaa kala soocaysa laakiin dadka yani mesela qofku soom buu niyeystay waxaa jira waqtiyo ay u bannaan tahay inuu afuro ilaahay baa qur-aanka ku sheegaya faman kaana minkum mariidan qofkii xanuun baa kusoo darriyey aw calaa safarin ama safar buu galay faciddat min ayaamin ukhra maalmo kale ayuu ku bedelayaayo uu soomayaa weeye mawjeeda sidoo kale gabadhii iyadana haddii dhiigga dhalmada iyo dhiigga maxaan ku leeyahay kii xaydku ay ku dhacaan iyaduna yani markaas dee soon ka asix maayo oo way afuraysaa dabeetana way soo qallaynaysaa mawjeeda marka qofka musaafirka ah waxaa sunno u ah yani waxa weeye in uu afuro ayaa u bannaan weeye faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddat min ayaamin ukhra ya iyo xadiidkii laysa min albiri alsiyaamu fi safar marka laakiin nabiga sala allahu alayh wasalam calaykum biruksati illahi alatii rakhasa lakum yani waxa weeye waxaan idinku ogahay ruksada ilaahay inaad qaadataan oo aad aqbashaan ayaan idinku ogahay mawjeeda sidaa dabaraadeed ilahi subxana wa tacala qofkan isaga ayaa rukso siiyey xamza ibn camr alaslami ayaa nabiga sala allahu alayh wasalam ku yidhi asuumi fi safar qaala wuxuu yihi nabigu sal lla alay slam in shita fasum wa in shita faaftar marka yani qofku khiyaar buu leeyahay ma waxaa fadli badan inuu soomo mise waxaa fadli badan inuu afuro waa la isku khilaafsan yahay culimmadu way isku khilaafsan yihiin yani waxaa weeye marka qofku haddii uusan mashaqo la kulmaynin oo dhibaato fara badan aysan ku jirin yani qofku ha iska soomo oo qofku waxa weeye inkastoo culamada qaybtood ay yidhahdaan in ruksada la qaato ayaa khayr badan laakiin haddaan mashaqo fara badan ma jirin oo aadanba dhibaato ku qabin yani waxa weye soomkaaga iska wado yani waxa weeye maxaaba qalle iyo xiliyo dambe iyo cimriga inuu gaaraya ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala marka saan sheegnay qofkii asagoo soonka niyeystay ayaa waxaa u bannaan inuu afuro mawjeeda inuu afuro qofku uu soom buu niyeystay markaasuu subaxii safar galay waxaa u bannaan inuu afuro sida axaadiis fara badan ku soo aroortay weeye ya hadduu rabana yani waxa weeye waa soomi karaayo waa iska soomi karaa yani waxa weeye waa ruksa oo ilaahi subxaana wa tacaala uu seeliyey faman akhada biha faxasan qofkii qaataa waa wanaagsan yahay waman axaba an yasuuma qofkii jeclaysta inuu soomana falaa junaaxa caleyh wax dhibaato ah oo saaran ma jirto weeye waa ka dadka loo ruqseeyey waataynu soo sheegnay waxaa ka mid a qofka sheekha kabiirka ah iyo haweeneyda cajuuzada ah waxaa u bannaan iyaga dee oo aan kari karin soonka way afurayaan waxayna samaynayaan fidyay bixinayaan maalin walba miskiin ayay quudinayaan haweeneyda iyaduna uurka leh iyo midda nuujinaysa hadday awlaadooda u baqaan ya hadday awlaadooda u baqaan way afurayaan way hee afurayaan iyaguna oo ruqso ayay haystaan marka culimmadu qaar baa kala qaada waxay yidhahdaan hadday nafteeda u boqdo yani waxay samaynaysaa way afuraysaa markaasay soo qallaynaysaa laakiin hadday ilmaheeda u baqdo oo ilmaha daraadiis ay u afurto yani waxa weeye soonkiina way soo qallaynaysaa yani fidyana way bixinaysaa saasaa culimmada qaybi iyaguna ay yidhaahdaan sidoo kaleeto saan sheegnay gabadhii dhiigu ku dhacay iyaduna
يعني وأفريسا هدونا وسوق الله ينسى قفك أكوي ما ذو والدة قفك وصومنا مركز واش أما إغماء بكون عي كومو قلي كومو أيو قلي قفك نوع عاس إسقنا إلهي سبحانه وتعالى يعني وحويه إن وسقنا ديسونكي يعني وحويه وكجبيا يعني مركا وحويه صونكي كأسيح مايو وحبها هي محيرة صونك وحويه الإمساك مع النية وإن يدل لقبه marka qofkii waa inuu markaas uu soo qaleeyaa markii aqligiisa uu soo noqo yani markii uu yani qofkii koomadii markuu ka baxo oo xanuun ka soo doorsado ayuu maaragtaa maxaan ku leeyahay uu soo qaleynaya way uu soo qaleynaya hadduu de isagu waala yahay waa marfuucul qalam xagga iskaga sii daa isaga ahay إلهي سبحانه وتعالى يعني إن عمل كانوا عمل قالي يهي وحا دليل حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم إلهي أكورني حديث القدس قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجله يعني إنه نيد باهي هي هل كاسات كجرنيسا يعني وحوى إلهي سبحانه وتعالى وحليه عمل كآدمه كل إسقاله صوم كموي صوم كأنا إسكاله أنا أبا المرينية محيّل يدع طعامه وشرابه من أجله أنا قدرتي أيو عنتدي عبتانك وقتجي مركا عملكو يعني نيد الآن ما الصحيه موجودة قفك مركا مجنون كا مغمى عليه جاء يا يعني مركا نيد كأصح ما يسو سيدا درادد مركا يعني قفك ساسوي مركا قفك حنون سنة يكيس سفري يهوين إذا حيضل أهيد يمدي ماركتا محان كله هي نفسد أهيد وحيّليان ويفريان maalmahaas kale ayay soo qalaynayaan qofka koomada galay isaguna yahay waa soomana xanuun baa ku dhacay yani koomu galay yani markuu isaguna soo miiraabo ayuu markaas uu soomayaa weey maalin ramadaan ah in la iska afuro iyada oo maaragta maxaan ku leeyahay aan la haysan wax cudurdaar ah iyada oo aan la haysan wax cudurdaar ah yani waxa waa arinta iyada waa arin aad iyo aad khatar u ah waa arin يعني آدي آد شريعتين أفوجيسي قفكو وحال الرباء إنه إسك إلاليو إنه آبي وأفرو ضد مخايدة إسك فرنية ضد إسك أفرية نبي صلى الله عليه وسلم حليه من أفطر يوما من رمضان قفك مال رمضان أفره من غير رخصة الآن سواء رخصة هيسن إيه ولا مرض حنون الآن رخصة مركز سفر كي يويه مرض محن كلها هي ولا مرض أو مرض أسنهينين يعني وحوي لم يقضيه صوم الدهر كله وإن صامه هذا سنة كأردن صومه ما لنته كم سو جديسو يعني قفك الدنبي كل عفيري سنة كأردن أو تصونتي ما لنته كام جديسو لذلك عيارها كو أفرين وحال لجرب عددك ما مولده الدولة ده هي وحال لجرب عددك أرداشة رمضان كعنتدا كرينية مخايدها فرية إن عددك قطان بالربا إلا إدبية على الربا وهذا إدب درن إلا إدبيه oo dariiqa lagu toosiyo laakiin hada qofka gurigiisa cunto la galay adiga ma ilaalin kartid xilna kaaba saarna laakiin waxa la diiray in banaanka loola soo baxo wixii oo makhaayirihi yani bariiska iyo baastada la isla dhaco laamiga dhinaciisa ayadoo cid walba u jeedo arinta iyada laba ogola waa inay dawladuhu iyo maamulka waa in arinta iyada ay joojiyaan laakiin qofka hada gurigiisa cunto iskala gali kara qofkaas cuntada gurigiisa la galay waxa sameynaya هذا السنة كأردن كامل جديسو سيدو شاقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم حديث بوكشك حديث أبي أمامة الباهلي ورينيو وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا جو هرداء يا لبن إيه تمد مركزي قربها يقبتينه مركزي واحد بور دير فول مركز ما فول كرو واحد فول أنا يعني كجرب جلينا أو كوف ضينا وان فلي بوليه إلى أن بور تماشى أسر رئيس كذا أنت جاي وحان مغلب ويرمك عد يعني هي آدي آد أدرن وأذق أو يريه مركاسان وحوي ما هذه الأصوات وما حسويدان مركاسو وحير هذين يعني وحوي ودتك عواء أهل النار يعني قيلة إيو ماركتا سوحا كدتك أهل النار كأويه موجودة مركاسا كوكالو إيقونا سدر نوع عذابا أيها اللي أقمر سيقول النبي صلى الله عليه وسلم وديقو كوكال قوليو مركاسا إركوان نوا محي مركاسا وحي النبي صلى الله عليه وسلم الذين يفطرون يعني وكوا أفرية أيضا أن بشي رمضان رمان oo yani maxaan ku leeyahay xilligii la afuriyay aan la gaarin ayay markaa iska afurayaanoo cuntadii bay iska cunayaan iyagana dadkaas cadaabkaas ayaa haysta iyaadan billah sidaa daraadeed waxaa la rabaa inaadan maalinna aabi u afurin mawjeeda marka kuma banaana inaad yani waxyaabaha dadka afurinaya oo aan kuu banaanayn waxaa u horeeya alaklu washurbu ya yani markii alfajr asaadiq fajrka saadiqa markuu soo baxo ya oo jihada uu camimo
marka uu soo baxo inaad markaa ka bacdi aad fajarka aragtay inaad cuntay iyo cabitaan cuntid kuma banaana ya kuma banaana maxaa yeelay yani waxa weeye xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr ilaa yani liilanka yani maxaan ku leeyahay cadi uu idinka caddaado liilanka madow idin kala baxaan yani fajarka saadiqa ah fajarka kaadibka ah weeye oo fajarka ah yani waxa weeye cuntadiina iyo cabitaankeena waa iska wadan kartaa ilaa halkaa laga gaaro halkaas ku dhamaanaysaa haddii halkaa la gaaro waa la soomaya uma atimu siyaama ila alleyl ilaa qoraxdu ay ka dhacdana soonkii baa la dhammaystiraya marka faman akala aw shariba mukhtaaran daakiran yani qofkii cuna oo caba asagoo isagu doortay oo xasuusta soonkiisii yani waxa soonkii waa ka burayaa yani waxa weeye waana wax soonkii ka hor imaanayo oo aan cudurdaar lahayn hadduu ka waran marka lagu afurayo cuntadii iyo cabitaankii haddaad kas u cuntid ka warrama qofku hadduu ilaawo isagoo ilowsan hadduu cuno bal ka warrama ama cabo bisha maalmahay bilowga tahay iyo bay badanaa aad u dhacdaa sidaa daraaddeed qofka isaga ah yani wax dhibaato ay ma saarna soonkiisuu wadanaya nabiga sala allah alay slam wuxuu leeyahy man nasiya wa huwa saa'imun faakala aw shariba qofkii maaragta maxaan ku leeyahy ilaawa isagoo sooman oo faakala aw shariba ama cuna ama caba ya falyutima sawmahu soomkiisa ha dhammaystiro maxaa jira fainamaa acamahu allahu wasaqah ciladii waa taa ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey ilaahay baa quudiyey oo cunto siiyey oo waraabiyey waa alla nicmo uu u qariye soonkiisa ha wato soonkii kama burin man aftara fi ramadaan naasiyan qofkii afura waxaan ku leeyahay maalinkii bisha ramadaan falaa qadaa calayhi walaa kafaara wax qadaana lagama rabo wax kafaaraana lagama rabo mawjeeda waman istaqaa'a fasada sawmu waxyaabaa soonka buriyo waxaa ka mid a inaad ishunqaacisid cadaygii iyo fartii baad isgelisay markaasaad hunqaaca iska keentay ya qofka marka saas yeela soomkiisa waa buraya wa calayhi qadaa qofkaas waxaa laga rabaa qadaa laga rabaa weeye laakiin haddii aad ismatajisid soonka waa kaa jabaya laakiin bal ka waran haddii matagii kusoo jiiro ya oo matagii asagu iskeeno adigu aan iska keenin ya waman daracahu lqayu qofkii hunqaacadii soo dhaafto falaa shaya calayhi wax dushiisa ahi ma jiraan ya xadiidka abu hurayra u daliila wuxuu leeyahy abu hurayra qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam man daracahu lqayu qofkii hunqaacadii soo dhaafto ya falaa qadaa calayhi wax qadaa lagama rabo ya waman istaqaa'a qofkii ishunqaaciya miya facalayhi alqadaa kaasaa qadaa laga rabaa marka waxyaabaa soonka burinaya waxaa u horeeya alaklu washurbu camdan alaklu washurbu camdan inaad cuntada cabtid inaad cunto cuntid ama biyo cabtid si kas ah haddii aad hilmaan ku cuntid ama ku cabtid soonkii kaama burin haddii aad ishunqaacisid soonkii waa buraya haddii hunqaacadu ku soo dhaafto soonkii kaa buri mayo waa ka sidoo kaleeto yani waxa weeye waxyaabaha soonka burinaya yani waxaa ka mida aljimaac ninku hadduu haweenaydiisi u galmoodo oo haweenaydii maalin ramadaan uu wax ka doono qofka isaga ah yani soonkiisii waa burayaa weeye soonkiisii waa burayaa mawjeeda waxaana u daliila qofkaasna waxaa laga rabaa qade iyo kafaara kii hore oo cuntada cunay ama cabay waxaa laga rabaa qadaa laga rabaa inkastoo culimmada qaybtoodna ay yidhahdaan kafaara u raacaysa hadduu kas u cuno laakiin sida saxda ah oo jumhuurulculamaa ay qabaan waxaa weeye hadduu cabo oo uu cuno camdan waxaa laga rabaa qadaa laga rabaa hadduu ishunqaaciyo soonkii waa ka buraya inuu soo qaleeyaa laga rabaa ya hadduu islaantii markaa u galmoodo maxaa iyadana dhacaya yani waxaa laga rabaa qofkii inuu soonkiina soo qaleeyo kafaarana waa laga rabaa kafaaradaasuna waxaa weeye cidqu raqaba inuu qoor xoreeyo maanta qoor xoreyni ma jirto xagga u tuur fain lam yajid hadduu waayo ilaa maanta maba jirtaba waagii qoori jirtay weeye qoor la xoreeyey ay jirtay faman lam yajid qofkii waaya fasiyaamu shahrayni mutataabicayni 2 bilood oo xiriir ah oo uusan kala goynayn ayuu soomaya hadduu maalin gooyo cudur la-aan hal maalin hadduu gooyo kow buu ka soo bilaabaya haddiise wax cudurhi ku yimaadaan oo cudurdaar uu yeesho meeshii uu marayey ayuu ka bilaabaya marka yani 2 bilood oo xiriiruu soomaya fain lam yastatic hadduu kari waayo fa iطcaamu 60 miskiinan 60 miskiin ayuu dharjinayaayo uu quudinayaa
waxaa u daliilay xadiidka abu hurayra wuxuu leeyahay abu hurayra radi allahu canhu waardaah بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم حل النبي أنه أكفدينه إذ جاء رجل نبا نبي أيمت فقال وحير هلكت يا رسول الله رسولك إلهي وان هلاك سمي قال وحير وما أهلكك ومحاك قد عيوك هلاقي قال وحير وقعت على امرأتي في رمضان مالين رمضان أيان إسلامتي كل عيو أو وحكا دور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولكم مركاسو وحير هل تجد ما تعتق واحد حريسده رقبة أم هليسا قال وحير لا قال وحير اجلس فريسو ومكث النبي صلى الله عليه وسلم حل أنه أنساء كجرنه أي نبي يعني وحوي وحكى ونبي ويديي يعني لما بلود مسومي كرتا ما يمسومي كروير ما بكري كرا أنتاس إلا هذا يران بعد كيسن ويو أنا ما أنت رمضان يدو سودن بركريئة بان حاجة دي كم مرمى ولا معدابة دي أرنتا ما كري كروير مركاسا وحيري نبي صلى الله عليه وسلم فريسو وحير مركان عمبار فديني أي النبي صلى الله عليه وسلم دنبيل تمر كبو وحده الله كياني موجودة مدوين مركاسو وحيري النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل أو كي وحويدي سنة إلى النبي وحويدي هذانا وحمد بحين كرتا 60 مسكينة مقودين كرتا ما يروحوا ما هايستو النبي مركا ويري أو كي وحويدي سنة ويمد قال وحيري خذ هذا تنقاض فتصدق به صدقيسو فقال الرجل مركاسو نك وحيري على أفقر مني يا رسول الله يا وفوالله ما بين لابتيها يا يريد الحرتين لبدا حرة مدينة وده حيسوي أيو دونيا يعني وحوي أنا قاعد يجبا هبدا ولا بدا ميلود وده حيسا مجرته فضحك النبي صلى الله عليه وسلم نبي جوا قصلي حتى بدت نواجده يا إلى ما رتا النبي صلى الله عليه وسلم جوسي قيب كم إذا أي موقدين ثم قال مركزه حكيري أطعمه أهلك أهل خيركaaga ku quuday xadiidku waa muttafaqun calayh sidaa daraadeed qofku hadduu haweenay ku dhaco waxaa laga rabayaa maalintii inuu soo qalleeyo kafaarana waa laga rabayaa hadde marka raqaba la xoreeyaa ma jirte ama 2 bilood oo xiriir u soomaya 60 miskiinan ayuu quudinaya sidoo kale waxaa xaaraan noqonaya maadaama soomkii uu ku burayo in islaanti loo galmoodo yani waxa weeye oo labadii isqabay ay wax kala doonaan almubaasharaduna xaaraan bay noqonaysaa ya isxoodaaminta ya iyo waxa ka horeeya muqaddimaadka jamaaca ka horeeya ila sameeyana ma banaana iyaduna yani waxa way iyadu qofkii labadii farji aysan istaabanayn inay maaragta maxaan ku leeyahay in maaragta la isxoodaamiyo oo yani maaragta maxaan ku leeyahay waxaabi muqaddimaadka ahaa la sameeyo lama ogola mawjeeda ya indanna inzalan hadii marka uu ka baqaayo yani maxaan ku leeyahay in marka biyo ka yimaadaan ya hadii marka islaantii uu la mubaasharoodo asagoo aan yani labadii farji aysan istaaban oo marka uu inzaal dhaco oo manidi ka timaado fasada soomkii waa ka buraya ya maxaa yeelay yani waa inzaal oo ka dhacay yani can mubaashara marka jimaaci buu la mid yahay soo uma jeedin sidaa daraadeed waxaa la rabaa waxa kuu geynayo dhan inaa iska ilaalisid ya alla macdaabada iskaga fogow maalintii haddaadan iska adag ahayn ayaroo gabana حتى meelaha iska soo warwareeg oo ama qolkay joogto ma aha qol kaleeto iska tag weeye mawjid waxa kale oo kamid ah waxyaabaha lagu afurayo waxaan soo sheegnay al-aklu wa shurbu amdan kow yani haduu cunto iyo cabitaan uu cuno maalin ramadaan isagoo kas uu sameynaya hadii uu hilmaamo wax dhiba male haduu ismatajiyo iyaduna soonki waa ka buraya hadii matagu soo dhaafo wax dhiba male haduu islaanti u galmoodo ya ama intuu mubaasharo seeyo biyo ka yimaadaan ya ayadana waxa weeye soomkii wuu ka buraya soomada garan midda kale waxa weeye الردة عن الإسلام قفكو إن إسلام نمدي كردوبه لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين هدي أتشرك التي مادين ودينتي أتسكجا بحدين عملك وبريا كوا خسارينا واتكم النقنيساء ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله قفك إيمانك كقالوا با يعني وحوي عملك سوا بريا وهو في الآخرة من الخاسرين آخرنا وقوة خساري ويه موجودة سيدا سوكلا وحال لمده cuntada cabida jimaaca ridada ismatajinta shan baynu sheegnay waxa marka cuntada iyo cabida la mid noqon doona yani mesela sida faleebada iyo cuntada ila faleebada haduu qofku faleeba isku mudo ma sagaab cunto u baahan ba way mawjeeda ya waxa baas caloosha tagaya oo cuntada iyo cabitaanka naaibka ka noqon kara ya iyaguna yani waxa weeye way afurinayaan dadka mawjeeda
sidoo kale kaniiniga la mid ah kaniinigu de cuntadii oo kale weeye mawjeeda waxyaabahaas oo dhanna way afurinayaan qofka oo waa lagu afuraa ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu ahkaamta soomka ina fahansiiyo soomkeenana ina ka aqbalo والله سبحانه وتعالى أعلم. They are mentioned in the Holy Quran. La ilaha illa ar-Rahman. La ilaha illa ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus.